Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday ku soo dhawaada Caawi Online College iyo courses-keena ahaaday Customer Service. Insha Allah courses-kan waxaan ku baran doonaa Customer Service waxa la dhaho. Maxaa la dhahaa customer, maxaa la dhahaa service, muxuuna yahay qofkuuna yahay customer-ka isla markaana la sheegayo. Ardayaal intaanan gudagelin cashirkeena yaa la dhahaa customer. Customer waxaa la dhahaa ardayaal qof waliba isla markaana organization-kaaga yimaada ayaa wuxuu yahay, ama dukaankaaga dheh ama meeshaada ama goobtaada ganacsi yimaada ayaa waxaa la dhahaa customer, ayaa ku ah customer. Qofka isla markaan lagu magacaabo customer ama macaamiil ayaa ahaaday qofkaasi. Sidaan ognahayba bulshadeena Soomaaliyeed customer-ka kaliya waxay u taqaanaa qofka isla markaana mararka badan u yimaada ama mararka badan soo booqda ayay u yaqaantaa waxa la dhaho customer. Laakiin customer waxaa la ha ahaado waqtigiisa ugu horeeya qofka isla markaana soo booqda dukaankaaga ama wax ka iibsada ama organization-kaaga item ama product ka qaata ayaa waxaa la dhahaa customer. Okay, customer-kaasi ama macaamilkaasi sidee ayaa loogu adeegaa, qaabkee isla markaana ay ahaatay adeegiisa ayaan ku baran doonaa maxaa laayay courses-kani insha Allah. I love customer service. Aad ayaan u jeclahay adeega isla markaana macaamiisha ama inaan u adeego macaamiisha aad ayaan u jeclahay. Customer-na waxa la dhaho hore ayaan usoo sheegnay waa qofka isla markaana dukaankaaga yimaada, ay qof ha ahaado ama any person ahaado ayaa waxaa ku ah customer. Okay, it is a fun to meet new people. Aad ayay u tahay mid funny ah in isla markaana la kulanto dad isla markaana cusub and help them isla markaana caawiso. I like the opportunity to make a difference in someone's day. Aad ayaan u jeclahay fursadooyinka isla markaana aan sameynayo maalin waliba oo isla markaana aan u sameynayo dad isla markaana ahaatay kala duwan. Taasi ayaa waxay ii tahay mid opportunity ah, fursad. Maxaa opportunity ah? Aniga like waan jeclahay the opportunity fursadda to make isla markaana aan sameynayo difference ka duwanaanshaha in someone's day, macnaha maalinba in qof uu ku yimaado. Now hadda it is not always easy. It is not always easy. Ma aha isla markaana had iyo jeerba mid fudud in isla markaana maalin walba qof cusub aad la kulanto, qof cusub aad la macaamiisho, qof cusub isla markaana uu kusoo ziyaado ama organization-kaaga ama company-gaaga uu kusoo ziyaado. Qof cusub maalin walba ma aha mid isla markaana fudud. It seems like we encounter a new challenge every day. Macnaha waxay u muuqataa arrintaa in isla markaana aad la kulmi doontid macnaha loolan maalin waliba because of maxaa yeelay qof waliba ama organization waliba ama qof waliba leh ganacsi ama meel kale isla markaana productiisa ku iibiyo dheh ayaa waxaa ogaataa in isla markaana kala dhaxeeyo loolan. Maxaa yeelay haddii customer-kaaga isla markaana service-kiisa uu noqon waayo ama adeega ama customer-kaaga aad u qabanaysid uu noqon waayo mid satisfaction ah ama uu ku qanco, haddaba waxaad ogaataa in hal customer sidaas aad ku weysay oo dadka aad loolanka la jirtidna isla markaana sidaas kaga guuleysteen haddii hal customer uu kaaga tago. Waayo hadduu hal customer kaaga tago waxaa ogaataa kuwa kale customerska kale isla markaana kusoo wajihi lahaayeen ama kusoo aadi lahaayeen in isla markaana uu kugu noqdo halkaas customer mid isla markaa cilad ah oo isla markaana kaaga warwareejiyaba adiga ahaanba. Some customers are difficult to serve. Macnaha customers qaar ama macaamiil qaar ayaa waxay tahayba inay aad u adag tahay in loo adeego. Difficulty to serve. Aad ayay u adag tahay in loo adeego. And we don't always have all the answers. Laga yaabaaba in aadan hayninba wax jawaab ah had iyo jeerba dhammaan su'aalahooda ayaanan ahaynba sometimes ba
inaad jawaabtooda u hanin maxaa yeelay are difficult to serve aad ayay u adag tahay inaad u adeegtaba. As a customer service professionals, our organization is counting on us to overcome obstacles. Marka loo eego macnaha adeegiga customerka ama macaamiisha professional ahaan ayaa waxay tahay macnaha organizationkeena ama ururkeena ayaa waxay tahay mid xisaabisay taasoo isla markaana ay aragtayba markay xisaabisayba overcome obstacle macnaha caqabada isla markaana aad u sareeya isla markaana markay aragtay sida ay u xisaabisay and find waxay heshay a way to keep our customers happy waxay raadisay wayga isla markaana customerskeena ay u noqdaan dad macnaha ku faraxsan adeeg isla markaana aan u qabanayno. marka hore magacaygu waa Abshir Abdicasiis. I'm a manager. waxaan ahay maamule consultant la taliye and trainer who helps customer self-esteem. waxaan ahay trainer kaasoo isla markaana caawiya kuwa ka shaqeeya teamka customer service ama adeega customerka ama macaamiisha leh. Okay, waxaan jeclaan lahaa in isla markaana ay idin la wadaago maxaan la wadaagayaa some techniques tactica qaar isla markaana ahaatay tacticadaasi in isla markaana aad ku gaarsiiso outstanding customer service customerkaaga adeegiisa uu noqdo mid isla markaana outstanding not good ayuu ka sareeyaa in customerkaaga uu aad ugu qanaco gaarsiintaada isla markaana aad u gaarsiisay adeegaasi isla markaana waxaan ogaan doonaa technique aan ku baran karno sidee customerkeena uu noqon doonaa outstanding customer service adeeg ama macaamilkeena u qabano midka ugu fiican oo macaamilkeena satisfactionkiisa high u noqon karo. Okay, and these are techniques kuwaas ayaa waxay yihiin technique I have learned and isla markaana bartay from spending more than 2 years working as a customer service. waxay tahay taasi ayaa waxay tahay in isla markaana aan barto weliba aan ku barto 2 sano iyo wixii ka badan waxaan ku baranayaa in isla markaana ka shaqeeyo adeeg isla markaana macaamilka trainer manager and frontline employee ahaado training ahaan managernimo iyo ahaadaba in isla markaana aan ka mid noqdo employee-ga isla markaana u qaabilsan customer service ama adeega customerka leh. halkan ayaa waxay ku taalo ama aan arki doonaa insha Allah 3 skill ama 3 xirfad aan u adeegsano ama customerkeena oo u noqdo mid outstanding customer service oo u noqdo maxaa waaye creating stronger customer relationships by building rapport waa in isla markaana aad abuurtaa xiriir isla markaana aad u adag adiga iyo customerkaaga adiga iyo customerkaaga adiga kugu xiran waa sida markuu customerkaaga imaado aad soo dhaweyso oo gacanta aad soo geliso xaaladiisa aad weydiiso wax isla markaana ku soo weydiiso haduu fiican yahay haduu isla markaana oo some issue ay jiraan isla markaana aad ahaato friends isla markaana ahaaday customerkiisa ka warqaba had ijeerba u noqdo customerkiisa saaxiib iyo wax walba in uu noqdo. Okay, exceeding your customers expectation waa in isla markaana expectationka uu customerkaaga ka qabo ama macaamilkaaga uu ka qabo uu ahaado mid high ah oo zaid u sareeya waa sidee. Okay, customer ayaa maanta ku imaaday waad u adeegtay kali baxadada no sidaas laga baro waa la ogyahay customerkaaga inaad u adeegtid dan iska baxay oo uu ka helay wuxuu uu ka rabay laakiin waxa laga rabaa in customerkaaga ama macaamilkaaga in uu noqdo expectationkiisa ama rajayntiisa mid isla markaana xadaaf very weliba high oo zaid u dheereeya. Okay, proving
ways to solve problems and diffuse customers anger macnaha isla markaana waxaan ogaan doonaa macnaha wayska isla markaana aan ku xalin karno problemyada isla markaana customerkeega soo wajaha iyo sidee macnaha xanaaqiisa aan u yareynaa customerkeega oo u noqon karaa mid xanaaqiisa had ijaarba uusan jirinba markaan u adeegayo iyo markuu imaanayo organizationkeena dheh along the way we all also look at how you can personally benefit from developing your customer service skills macnaha way keli isla markaana ugu dheer aan eegayno ayaa waxay tahay sidee aad adiga shakhsi ahaan ayaad ugu faa'iidi kartaa maxaad ku faa'iideysaa in aad horumariso maxaad horumarinaysaa customer service-kaaga sidee customer service-kaaga aad u horumarin kartaa adeega isla markaana aad u qabanaysid customer-kaaga ama macaamilkaaga ha ahaato had iyo jeerba customer-kaaga ama macaamilkaaga adeega u qabanaysid adeeg aanan inaba expectation-kiisa la jun ahayn ama good keli uusan ku ekeen u ahaada exceptionally good okay if you are like me haddii aad tahay anigoo kale you will find waa inaad raadisaa that using these skills you can make serving customer little easier and a lot of fun haddii aad tahay anigoo kale waa inaad raadisaa ama aad isla markaana ku dhaqaaqdaa maxay ku dhaqaaqaysaa skillska aan soo sheegnay aan isla markaana aan ka soo hadalnay oo strong relation oo muxuu ahaaday saddexdii waay soo maaha creating stronger customer relationship by building rapport okay exceeds your customers expectation iyo proving ways to solve problems saddexdaas waa in isla markaana aad ku dhaqaaqdaa haddii aad saddexdaas ahaato qof ku dhaqaaqa isla markaana u horseeda maxaa noqon doontaa you can make serving customers a little easier waad u adeegi doontaa ama waad u awoodaa inaad u adeegto customerkaaga weliba si yar oo easy ah isla markaana a lot of fun aad ahaataa mid isla markaana adiga customerkiisa ama qofka ay customerkiisa la qusla la baashaala la macnaha wax walba la wadaaga u ahaado customerkaaga very exceptionally good ardayaal insha Allah welcomingkeena halka ayuu inoogu egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu